in ka badan 100 qoys oo danyara oo ku caydhoobay abaartii soo martay dalka Soomaaliya oo degan deegaanka Dar es Salaam oo hoostaga magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa maanta hay'adda Amana Foundation waxa uu qaybisay 100 kartoon oo baasta ah iyo waliba sidoo kale booyad biyo ah. Hay'addan Amana Foundation oo ka shaqeysa arrimaha khayriga oo uu gudoomiye ka yahay Maxamuud Cabdi Jaamac deeqdan ayaa waxa loo soo wakiishay Axmed Maxamed Cismaan oo soo gaarsiiyay deegaanka Dar es Salaam waxaana ugu horeyntii halka ka hadlay oo ka warbixiyay deeqdan iskugu jirta raashinka iyo biyaha ee maanta la soo gaarsiiyay deegaanka Dar es Salaam Axmed Maxamed Cismaan dhinaca kale waxa asaguna halka ka hadlay gudoomiyaha deegaanka Dar es Salaam Najax Salebaan Salaad oo u mahad celiyay hay'adda Amana Foundation iyo waliba sidoo kale hawlwadeenadeeda waxa iyaguna sidoo kale u mahad celiyay dadkii la soo gaarsiiyay deeqdan dhammaan waan salaamayaa odayaashii cuqaasha iyo waxgaradka iyo haweenka iyo dhalinyarada degmadan ama magaaladan ama tuuladan Dar es Salaam waxaan idin sheegayaa oo idin la socodsiinayaa gudoomiyaha iyo guddiga hay'adda foundation waxa ii soo wakiilatay $2,000 inaan raashin iyo biyo aan idin siiyo idinka iyo magaalada tuulada la yiraahdo Galoole hawshii degmada Galoole aan saaka aanu baxnay waxaanu soo gudoonsiinay ama lacagtii $2,000 ahayd la ii soo dhiibay aan ku iibiyay 200 oo kartoon oo baasta ah 100na waxaanu soo siinay aanu soo qaybinay Galoole iyo booyad biyo aanu soo raacinay idinkana waxaanu idin haynaa oo hadda aan gudoomiyaha iyo guddiga odaasha aan ku wareejinaya oo hadda klibkeedii la duubaya 100 kartoon oo baasta iyo booyad biyo oo niica marka waxaan leenahay oo aan idin leeyahay oo mahadnaqaya gudoomiyaha iyo guddiga hay'adda Amana Foundation oo idinku soo deeqday raashinkaas $2,000 iyo labada booyadooda biyaha ee aad kala lahaydeen waxaan leenahay ilaahay meeshii ay ka soo saareen muxsiniintaas idin arxantay idin naxday in ay halkii ay ka soo saareen in ilaahay wax ka khayr badan ilaahay ugu bedelo rabadaanta barakaysan aynu ku jirnana khayrkeeda ilaahay uu waafajiyo inta waxa ii dheer waxaan leeyahay walaalahayga gudoomiyaha iyo guddiga Amana Foundation waxa weeyaan labada tuulo animi way abaaraysan yihiin oo way biyo la'yihiin oo abaar iyo biyo la'aan iyo baad la'aan baa ku dhacday waad aragtaan magaalada iyo dadka jooga siday u egyihiin macaluul badan iyo darxmo badan baa ka muuqata waxaanay u baahan yihiin inaad mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba aad soo caawisaan haddii alla idmo oo alla qadaro marka waxaan idin leeyahay waan hadda ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha degmada Najax Salebaan Salaad أولاً إلهي سبحانه وتعالى أيام هذله وأنهم هاد علينا مركز حجة مقعيو ونجح سلبان صلاة قدوميه دار السلام مركز لبعض وحنوم هاد علينا هيدا أمانة فونديشن وحنقول لنا هي جزاكم الله خيرا وينسوق علي wixii aad noogu tala gasheen deegaan ahaan waxaana soo gaadhay 100 kartoon oo baasta ah iyo hal booyad oo niica oo biyo ah baahiyaha haddaba deegaanka ka jira maaha waa baahiyo fara badan oo kala duwan waxa abaara baan baa ka dhacay deegaanka dadku xanuuno iyo baahi iyo biyo la'aan intuba waa jirta ilaahay subxaanahu wa ta'aala asaga ayaa qaadi kara waxaanu ka codsanaynaa gudoomiyaha iyo guddigiisa hay'adda Amana Foundation wixii tabarucaadaha ay inay wax ka badan oo tabarucaadaha oo waliba ay wixii ay awoodaan inay dadka ehelka ah jilicsan ay sida ugu dhaqsaha badan u soo gaarsiiyaan halkan
waxaan ka salaamayaa bacda alxamdulilah mahad alle ka bacdi hay-adda una ducaynaynaa hay-adda Amana Foundation Allah subxaanahu wa ta'aala ha barakeeyaan leen Allah subxaanahu wa ta'aala ha barakeeyo camalka wanaagsan ee waxa weeye ihsaanka ay sameynayso waliba dadkeeda qaraabada ah ay u sameynayso waxa weeye waxaan ugu ducaynaynaa Allah subxaanahu wa ta'aala barakallahu fiikum baan leenahay wa ahsanallahu ilaykum baahi way farbadan yihiin ilaahay baa soo koobi kara sida gudoomiyuhu sheegay baahi way farbadan yihiin haday xagga biyaha haday tahay iyo xagga cuntada haday tahayba marka waana iska imtixaan waxa weeye dadkan waa la isku eegayaa marka Allah subhanahu wa ta'ala barakeeyaan jazaakumullahu khayr bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wassalatu wassalamu ala rasuulillah halkan aynu joognaa waxa weeyaan deegaanka Daarsalaam waxaasna soo gaadhay deeq raashin oo ah 100 kartoon oo baasta waxaana soo bixisay hay'adda iyo niicbiya waxa soo bixisay hay'adda Amana Foundation marka dadkii soo baxsaday intii ku tacabtay baa waxaan ugu ducaynaynaa bisha Ramadaan fadligeeda in Ilaahay meesha ka soo bixiyeen wax khayr qaba uu ugu bedelo jazaakumullahu khayr hay'adana waxaan u leenahay tii soo barbaarta noqo oo ummadeeda anfacda noqo bismillaahi kariim salaanta ka bacdigeed waxaana soo gaaray raashinka odayaashii hore ka hadleen sheegeen 100 kartoon oo baasta iyo hal niica oo biyo ah haddaba waanu idinku mahad celinaynaa waana idin ducaynaynaa ilaahay meeshaad ka soo saarteen wax 2 jibaarkeed iyo 4 jibaarkeed iyo 10 jibaarkeed baleeg Allah idinku bedelo waana u ducaynayaa halkan waxaa naga soo gaaray 100 kartoon oo baasta iyo hal booyad oo biyo waana loo keenay alabta aan waa gudoonnay waa u sheegaynaa hay'adda Amana Foundation in alabtaas noo timid hadda labaadna idinka iskale maanta wixii ay soo gaarsiiseen wana soo gaadheen hadaan maatada nahay alxamdulillaah rabbil caalamiin waana naag yaalaan waana naloo qaybinayaa si wanaagsan oo sharaf leh oo mudanna waanu idin salaaminaa hadaan nahay deegaankaba dhammaan hase ahaatee hay'adaha sharafta leh adduun weynaha meel walba waad aragtaan abaaraha iyo waxa dhacaya iyo odoluflufka iyo biyo la'aanta iyo raashin la'aanta iyo roob la'aanta haysata waad arkaysaan aad iyo aad baan idinku wada baahanahay wixii ay noo soo dhiibeen quudinta ay noo soo dhiibeen wayna soo gaadhay booyad biyo iyo 100 kartoon oo baasta ah wayna soo gaadheen gudoomiyihii gudidii way noo keentay waa nagu soo sintay garabkiina ilaahay idin kaalmeeyo sidaad noogu kaalmaysaan Allah idinku kaalmeeyo ilaahay idankiisa saad noogu kaalmaysaan Allah idinku kaalmeeyo waanu haraadnay si xun baan u haraadnay bil Ramadaan baan joognay abaaraan joognay ilaahay idinka kaalmeeyo Allah idinka garab galo ilaahay idankiisa Maxamed Cali Bile warbaahinta qaranka Soomaaliya buu hoodle